iyadoo ay weli socoto munaasabada lagu xusayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay weerarkii gaariga loo adeegsaday ee lagu jarsiiyay dad masjidka Finsbury Park ee magaalada London ka soo baxay. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 1 ruux waxaana ku dhaawacmay 8 ruux, isla markaana 7 ka mid ah dadkii uu dhaawaca soo gaaray ayaa ahaa Soomaali. Telefishinka caalamiga ee Hong Cable ayaa waxa uu wareysi gaar ah la yeeshay dadkii eheladooda ku waayay iyo qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay. Sidoo kale waxa inoo suurto gashay inaan wareysi la yeelano mas'uuliyiinta dhinaca nabadgelyada ee degmada Islington oo ah degmadii uu dhibka ka dhacay iyo taliyaha ciidamada booliiska xaafadaasi, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa. Welcome to the Hong Cable TV. Thank you very much indeed. Waxaan halkan u joognaa inaan bulshada u midowno wixii halkan ka dhacay sanad ka hor, weerar xun oo ay geysteen argagixisada oo aan ku weynay dad ka mid ah bulshada deegaankeena. Isla markaana waa lama huraan inaan u midowno wax kasta oo bulshada dhib u geynaya, ha ahaadaan dadka muslimiinta iyo dadka aanan ahayn muslimiinta. Sidoo kale waxaan goobta kula kulmay Cali Baashi oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay weerarkii sanad ka hor ka dhacay halkan. Wuxuu yiri waad mahadsantahay walaalo, halkan caawa waad aragtaa dadka isugu yimi, dad diimo badan oo kala duwan leh, dhaqan badan oo kala duwan leh. Sida aad ogtahayba wadankan xaafadda tan 370 af baa lagaga hadlaa, intaasoo qowmiyadood baa degan. qiyaastii marka la qiyaaso mid ka maqan caawa ma jiro, waa la isugu wada yimi iyadoo oo caawa ay tahay habeenkii xasuusta terroristka lagu soo qaaday dadka muslimiinta ee rabadaantii gudanayay sanadkii hore ay ahayd. waxaanu runtii isla gaadhnay in halka kan masaajidada la isugu yimaado dadka diimaha kala duwani 3 biloodba mar. walaal dhaawacaygu lugaha runtii ka jajabay, marka dhaawacaygu luguhu ahaa aniga. Waxaan halkan u joognaa inaan kaga qayb galno munaasabada afurka ah oo aan ku xasuusanayno sanad ka hor weerarkii halkan ka dhacay. Waxaana wax lagu faana ah inaan aragno bulshada oo u midowday wixii halkan ka dhacay sanad ka hor. We would like to remember the positives that came out from those days, with the community showing the love and the support. Also, everyone that was around us. We're very happy to be part of this community and to be in this country with such loving, diverse community around us. And we'd just like to thank everyone for their support and the love that they've shown, and hope they continue to do so. And please just keep passing your du'as. Thank you very much. Thank you. عبد الفتاح علي الشروع، تلفزيون عالمي هون كيبل مقالة لندن.